guud ahaan hay'adda Save the Children Soomaaliya ilaa 200 oo iskuul way dhistay wayna hadda ay caawisaa Puntland 97 iskuul ayaan caawinaa oo wax ka bartaan arday ka badan 100,000 oo arday hay'adda sida magaca uu tusayo muxuu ahaaye waxay focus ka saartaa inta badan caruurta intaanay dhalanin iyo markay dhashaan caafimaadkooda markay yara koraan waxbarashadooda iyo in muxuu ahaay la daryeelo oo la ilaaliyo waxyaabahaas oo dhan marka waxay hoos imaanayaan in qoysaskii laga caawiyo caruurta inay daryeelaan Puntland sida uu agaasimaha guud sheegay wasaaradda waxbarashada ay fiirinaysaa waa tayo iskuulka halkaan ka dhisnaa maanta laga dhisaa waxaan rabnaa inuu noqdo iskuulada ugu tayada fiican inuu galo ee Puntland waa tayada aan rabno inaan ka duulayno hay'adaha ugu wanaagsan ee wasaaradda waxbarashada Save the Children baa kamid ah waa saaxiibka koowaad ee wasaaradda waxbarashada ay leedahay waa Save the Children say sheegeen meelo far badan oo deegaamada Puntland aba wax ka qabteen 97 iskuul ayaga waa tiro aad u badan arday 100,000 ku dhow ayaa Save the Children ay agab iyo dhismayaal ay wax ku bartaan ay u hagaajisay xarun dayarta ah oo dadka dayarta ah waxbarashadii ka habsaamay halka laga faa'iideynayo lagu dhaxdhigo mahad Ilaah baa leh dawladda Puntland waa uga mahad celinaynaa wax qabadka ay u qabanayso dhulka laamiga ka baxsan waxaan leenahay dadaalku inta ka sii bato waa la dhagax dhigay ilaalinteeda iyo fayoodeeda annaga leh dadkii barakacayaasha ahaa oo 700 oo qoys oo barakacayaasha waa wixii joogaan deegaankan ma aysan haysan meel ay goobo ay wax ku bartaan marka faa'iido weyn bay hooyada iyo dhallaanka u tahay